waxaa marba marka ka dambeysay cirkaas ku sii shareeraya khilaafka ka dhashay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in habraaca wax ka bedelka dastuurka uu maray hanaan laga wada qayb qaatay, inkastoo wasaaraddu aysan sheegin in maamulka Puntland ee xubnaha ku metelaya ay diideen in ay ka qayb qaataan. Khilaaf xooggan ayaa waxa uu ka taagan yahay dhamaystirka dastuurka iyadoona ay ku kala qaybsameen xubnihii guddiga dastuurka iyo sidoo kale xubnihii labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u qaabilsanaa dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka. khilaafkan xooggan ee ka taagan wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ayaa wuxuu ku saadayaa iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqday in 1 bisha Febraayo ee sanadka 2026 magaalada Muqdisho ka qabsoomi doono shir wada tashi ah kaasoo ay isku imaanayaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. waxyaalaha ugu waaweyn ee shirkaasi laga wada hadli doono ayaa waxa qayb ka ah wax ka bedelka dastuurka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo ay si weyn iskugu khilaafsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka. qobarada ka falanqooda dhinaca siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen in arrintaani dawladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in wax kaga bedesho dastuurka ku meel gaarka cutubkiisa 5 ilaa 9 inuu dhabarjab weyn ku yahay shirka ay qorshaysay dawladda federaalka Soomaaliya in 1 Febraayo uu ka qabsamo magaalada Muqdisho, iyadoo laga yaabo in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ka laabtaan go'aankooda ah in ka qaybgalka shirkaasi maadaama waxyaalaha ugu waaweyn ay diidan yihiin ay tahay wax ka bedelka dastuurka oo ay fila Soomaaliya iminka si weyn ugu fogan tahay in wax laga bedelo.